بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله waxaan ilaahay uga mahadinayaa marka hore inaan si nabadgelyo ugu soo noqday magaalada Kismaayo oo ah xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland. waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo madaxweyne, xukuumad, baarlamaan iyo shacabka reer Puntland gaar ahaan magaalada Garowe sidii qadarinta lahayd ay ugu hayeen dadkii faraha badnaa ee u yimid ka soo qaybgalkii kulan dood wadaagii ay qabteen macadka Heritage taasoo aan isleeyahay waxay sabab u noqotay inay is arkaan dad badan oo muddo kala maqnaa iyo mas-uuliyiin badan oo siyaasadda Soomaaliya saameyn ku leh iyo kuwa badan oo hadda mas-uuliyadda ku jira intuba. waan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celiyo waana arrin ku dayasho mudan Puntland oo aan odhan karo waxay ahayd hooyadii federaalka qaayaha tallaabooyinka ay qaaday iyo horumarka ay gaadhay iyo sida ku dayashada u mudnayd taasoo is leeyahay hoggaankooda iyo shuruucda ay dejisteen iyo nidaamka ay ilaashanayaan baa sabab u ahay. intaan markaan ka soo gudbo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo mas-uuliyiinta iyo shacabka iyo ciidanka reer Jubbaland gaar ahaan Kismaayo soo dhoweyntii ayna soo dhoweeyeen ee qiimaha iyo qadarinta lahayd iyo sida ay had iyo jeer ugu fakarayaan isku duubnidooda iyo inay cabiraan marba fikirkooda. intaa marka laga soo tago waxaan ku jiraa waqti adag oo u baahan Soomaaliya in dareenka jira iyo xaaladda guud ay ku jirto waa xilliga xasaasiga ay u baahan mar walba kala guurka iyo xaaladdan doorashadu markay soo gaadho had iyo jeer waxaa yimaada caqabado iyo isqaqabsi laakiin waxay u baahan tahay xal in laga gaadho. xalkana waxaa lagu gaari karaa wada hadal, isfahan, tala wadaag iyo in dadku intay isu yimaadaan inta mas-uuliyadda ay khusayso mar walba ay qaataan wixii go-aana ee la gudboon. waa marka loo baahan yahay in shirarku bataan, wada hadalladu bataan, kulamadu bataan. wax yar oo laga yaabo in lagu sixi karayo laba eray yaa waxaa laga yaabaa hal kulan lagu sixi lahaa inay qaadato caqabad iyo dhibaato ka badan. waxaan nasiib darro ah in laga soo bilaabo shirkii ugu dambeeyey ee aanu ku yeelanno 17 Sebtembar magaalada Muqdisho ay ka dambeysay waqti dheer oo intaa weliba iyadoo la arkayay caqabado iyo carqalado jira iyo wax la isku diidan yahay ay noqotay inaan intaa la isu imanin oon laga wada hadlin wixii jira iyo dhibaatadii waxba la iska weydiin. ma aha in la diidan yahay heshiiskii Muqdisho Sebtembar, ma aha in la diidan yahay intii Dhuusamareeb lagu soo maray, laakiin waxa uu hadalku ka jiraa waxay tahay fulinta wixii lagu soo heshiiyey. waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood shaygan fulintiisa la isku khilaafo siduu xataa siyaaqu u qoran yahay ama warku siduu u qoran yahay. intaasoo dhan baa waxay sababayaan markaa inay keeni karaan haddaan kulamada iyo isu imaatinka iyo la joogtaynin in wax badan oo khaladi ay soo bixi karaan. waxaan aad ugu mahad celinayaa sidaan habeen dhaweed ba u mahad celinayey saaxiibadaydii isku dayey in ay arrintaa xal ka gaadhaan oo ay isku dayaan inay kulamo la qaato. laakiin waxaad moodaa sidii aan ugu talagalnay si aan ahayn inay wax badani u dhaceen oo isu bedeleen. waxaa jirtay annagoo ka kooban 6 qof oo mas-uuliyiinta hadda shaqeeya ah inay noo yeedheen niman mas-uuliyiin madaxweyneyaal hore iyo musharaxiin ah iyo speaker iyo ra-iisul wasaareyaal hore oo lanagala hadlay nimayow idinkaa hadda ku jira shaqadii caqabaadkanaana jira oo waddankii hor yaallee maxaa xala. taasoo keentay markaa inaan 6 ahayn 3 madaxweyne state, guddoomiyaha ku-xigeenka, ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo 2 guddoon baarlamaan oo aqalka sare iyo golaha shacabka ah inay noqoto inaan u dirno oo la yidhaahdo bal qoladaasi ha tagto 3 qodob ee la isku hayeyna ha ka keeneen jawaab waafi ah. waxaan ka sugaynana waxay ahayd arrinta jawaabta laga sugayey inay 2 xaalo miduun timaado. wixii waa la soo aqbalay qoraalkii in la keeno weliba annagoo sugaynay inay nagu soo noqdaan madaxdaasi gaar ahaan madaxweyne qoorqoor inuu noo yimaado. mayo ma ahe waa lanoo iman karayey oo iyagii warqadda wada iyo wixii lagu soo heshiiyey madaxweyne qoorqoor iyo saaxiibadii way nagu soo noqon kareen. amase shir baaba dhici lahaa golayaasha dowladda ay isugu yimaadaan oo madaxweynaha iyo ay yimaadaan ra-iisul wasaaraha iyo kulligooda hawshii lagu dhammaystiro.
ma ayna dhicin sidaan u sugaynaa waxaan maqlaynaa waa la aqbalay heshiiskii jawaabna kama aanaan helin qoraal ma aanaan helin oo lanooma imanin oo waa la idiin imanayaa lanama odhanin laakiin jawaabta baxday waxaan is leeyahay mayna ahayn jawaab munaasabkeedii ku baxday ama jawaab waktigeedii dhacday mayna noqon waxaan aada ugu talinayaa mas-uuliyaddu dadka ma wada raacayso cid kasta oo nimanka musharaxiintaa iyo mucaaradka iyo kulligood gar bay leeyihiin saa waxbay ka hadlayaan amaa waxa ay taabanaysaa waxaa weeyaan dadka mas-uuliyadda haya ee shaqada ku jira oon anigu ka mid ah markaan anigu caddeeyo inaan diyaar u nahay doorasha inay dhacdo inaan diyaar u nahay fulinta heshiiskii 17 sebtembar muqdisho aan ku gaadhnay inaan diyaar u nahay waddankaasi khalkhal oo dhan in laga ilaaliyo aan mar walbana kala hadlayno dowladda war arrinta siday tahay ha loo kala qaado oo wax walba xalka laga gaadhayo ha laga gaadho markaan ka hadlayno arrinta gedo oo kale waxaa laga hadlayaa doorasho waxaan haysanaa caqabad baana haysa dhib ah ciidan baa muddo 8 bilood 9 bilood bannaan jooga laga barakiciyey shabaabkii iyo u dhaxeeya ciidan kale oo dowladdu aad moodo cidda laga xoreynayo aana garanayn oo mushkiladna haysato weeye arrintii gobol maamulkii baa gacanta ka baxay isku duubnidii iyo dadkii iyo walaalnimadoodii baa dhibaato la dhex dhigay doorashada markay timaado maalintii ugu horreysay aan madaxweynaha iyo isku waafaqnay ra-iisul wasaaraha iyo kulligood in state walba 2 gobood lagu qabto garbaharey baa ka mid ahayd goobta labaad ee jubbaland lagu qabanayo kismaayo waxaan diyaar u nahayn inaanu qabanno doorashada laakiin waxaa su-aal lahayd waxaan ka hadlayna waxay ahayd war ha la abuuro environmenti ama qaab aanu doorasho ku qaban karayno ha la abuuro garbaharey maamul lagama joogo oo maamulkii jiray waan garanaynaa sida lagaga qaaday iyo sida meesha la geeyey amni laguma aamini karayo xaalad walba way nagu culus tahay waxaan idhi aan qabanno laakiin stateku hadduu doorashadii qabanayo xaq u leeyahay waxaa habboon in stateka loo daayo oo at least waxaanu ka wada hadalnay arrinta gadaha haddii 2 qaybood laga dhigo soo wareejinta maamulka iyo ciidamada la kala celinaya iyo dib u heshiisiinta iyo waqtiga way qaadan kartaa ilaahuma bil qaadato laakiin tan doorashooyinka iyo garbaharka ku saabsan waxaan is leeyahay muddo ma qaadan karayso waxaan rabaa madaxweynaha jamhuuriyadda inaan u sheego waxay noqonaysaa ceeb in arrintaasi ay noqoto mid si uu ugu dhegan yahay oo si uu uga hadlayo shalay markuu musharaxa 2016 kuraas gadana umayna oolin kursi uu lahaana ma jirin xiriirna lamuuna cidna la lahayn guud ahaanna waan isgaranaynaa idyadii markaa doorashooyin ka dhacaysay wax saameyn oo ku lahaa ma jirin isagaana ilaahay u qoray oo ku waxaystay haddii ay noqoto in dariiqeeda la maro qofka ilaahay meesha uu qoro unbuu marayaa isagoo oon gadana wax ka sheegin buuq kalena samayn waxaan anigu diyaar u ahay asa jubbaland inaan fulinno wixii aanu isku soo heshiinay waxaan diyaar u nahay in aan qabanno doorashada sida ugu dhaqsaha badan waxaan diyaar u nahay inaan ku qabanno sida isteydyada kale ay ku qabanayaan waxaan ka digayaa oon maanta soomaaliya xal u ahayn inaan fariimo aan jirinna la isweydaarsado doorashana la yidhaha hebel iyo hebel oo qabta hebel iyo hebelowna bannaanka ka jooga waxa ka iman karana aan garanayno soomaaliya hadday xamili karayso dictatorship iyo anaa idhi iyo sidan hala yeelo mayna burburteen dhibaataduna halkaa mayna gaadheen waan ka digayaa arrintaas ha la isu yimaado maxaa diidaya in la kulmo oo la isu yimaado maxaa kalifaya in la diido oo laga warwareego in la isu yimaado wadahadalku aan wada hadalo waa aan heshiino waxaa technicalkii aan isku hayna hadal baa lagu sixi karaa laguma sixi karo dood iyo fariimo la isu diro iyo cid la isu soo mariyo laguma sixi karayo waxaan aad iyo aad uga xumahay inaan muddada intaa la eg annaga oo dana gaara laga leeyahay aan isdaba wareeg ku jirin oo ay kalifi laadahay inaan intaan isu nimaano wada hadalno saddexda arrinta guddiyada waa la xallin karaa tan somalilan waa la dayn karaa odayaasha ka soo jeedo iyaga xallisan karaya ta jubbaland 2 marxaladood baa loo qaadi karaya tan somalilan faragelintii intii laga daayo mas-uuliyiinta ka soo jeeda ha wada hadleen tan jubbaland 2 marxaladood ha loo kala saaro asalna waxaa ah wixii wadahadal lagu dhammayn waayo isu yeedhin laguma dhammayn karayo madaxweyne aad baan ku ixtiraamaynaa madaxweynihii jamhuuriyadda waan ku soo dhaweynaynaa waxaa nala quman waxaa adiga sumcaddaada iyo shaarkaaga gaadhaya kulliganuuna gaadhayahay waddankan in loo turo xaaladiisa la fiiriyo international communitygana waxaan ku boorinayaa mar walba dadaalka dheeraadka ay ku jiraan waxaana asala inay ka shaqeeyaan in shir la isugu yimaado ilaahuma hal maalinba noqdo
oo lagu wada hadlo khaladaadka jira in la waxeeyo waxaa mudan kuwa musharaxiinta waxay ka cabanayaan in laga xaliyo waxaa mudan kuwa mas-uuliyiinta ee wax sheeganaya in laga xaliyo waxay sheeganayaan waxaa asala waddankani xaaladiisa uu ku socon karaa waxa weeyaan kugusan in qof waliba qofka kale uu ilaaliyo oo idhaa aday kugu fiican tahay maya tani aday kugu fiican tahay laakiin in qof waliba siduu doono uu yeelaayo tan Soomaaliya ma aha mid ay ka socon lahayd aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa shacabka reer Gado inaan u sheego war dad walaalaha la yahay reer Gado waa reer Gado reer Jubbaland waa reer Jubbaland hala ilaaliyo inaan dana kale waxba loogu dhibaato inoogu gala gaadhin aan ka shaqeyno midnimadeena iyo wada jirkeena aan ka shaqeyno inaan isku duubnaano aan ka shaqeyno kuwa shalay maamulka ee la kaxeeyay ee meelaha kale loo gacan hadiyay waan u yeedhaynaa maamulkiinii baad noqonaysaan soo noqdo aan wada hadalno dib u heshiisiin baan ka samaynaynaa wax kastoo dhibaato annaga dhibaato nagu tahay aad baad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi